isbitaalka wuxuu ilmahan waa finisho waa soo tuuraya ka bacdi markaan inta isweydaarsanay kursiga ka baxay isbitaalkaas saliid koomaan ku galay kursi 5 saac iyo bar baan kooma ku jiray markii aan koomada ka soo baxay baa la qalay xantu soo noqonaya tuuba halka dhigta hoosteeda kaga jirto saas loo bangareynay sida baabuurka naqaska lagu qaban ka diiday si jeedsanay tuubadaas ilaa halkaas kaad haysta halka laga dar calooshana waa halkaas ka qalad allaala waxaan dhakhtar ku geeyay waxaan dhakhtar ku geeyay waxaan bas ku raacay waan waay madaxeyguma yaalaan margeedigu yaalaan timi waan xeeray waa la silxay waa la balanbal waxaan dhakhtar ku geeyay waan waay waxaan la kaashaday waan waay waxay la garab qabtay waan waay waxa been iga qabtay waan waay hooyaday way dhimatay la raxmad raaxin waa hooyadan yar oo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland wiil ay dhashay ayaa in muddo ka xanuunsanayay kaasi oo madaxu bararay sidoo kale suuxditaan saa'id qaba waxaana ummadda muxsiniinta ah ee ku nool daafaha dunida ka codsanaysa in la soo caawiyo waxaana sheegtay in dhakhaatiirta Somaliland gaar ahaan kuwa magaalada Hargeysa ay sheegeen inaan dalka waxba lagaga qaban karin oo dalka dibadiisa wax lagaga qaban karo waxaana ummadda muxsiniinta ka codsatay in si weyn loo soo caawiyo waatan hooyadan oo baaqaasi cabashada u diraysa bulshada Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah walaal dar alle ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan salaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal salaanka bacdana bukaan ka yar hooyadii baan ahay inaan ka yar in badan buu igu xanuunsanay uurka hooyadii baa lagu helay kiyo 8 bilood iyo 14 cisho isbitaalka Xuseen la geeyay isbitaalka wuxuu ilmahan waa finisho waa soo tuuraya soo tuuribay soo ku ilmaha Ilaahay baa halka dhigay ka bacdi markaan inta isweydaarsanay kursiga ka baxay isbitaalkaas saliid koomaan ku galay kursi 5 saac iyo bar baan kooma ku jiray markii aan koomada ka soo baxay baa la qalay qaliin tabarucaada oo waxba laga qaadin baa la qalay Allah barakeeyo isbitaalka Xuseen iyo shaqaalihiisa si fiican bay ugu shaqeeyeen ilmaha yar arkaysan oo madaxa biyo kalkoor kaga jireen bukaankaas madaxa biyo kaga jireen oo madaxa inta muuqatay imka madaxiisa arkaysan inta muuqatay labadeeda ahaan oo indhaha muuqan oo afkaas muuqan baa laga soo saaray markii laga soo saaray baa dhakhtar degdeg ah la geeyay shaqaalihii Xuseen wala isku tagay dhakhaatiirta dhakhtar degdeg ah la geeyay isna biyaha madaxa laga shubaya dhakhtar baa la geeyay madaxa laga soo sawiray sawirkii marka laga qaaday ayaa adna la geeyay adna waxay tiri waa qaliin degdeg ah laba qaliin oo saaran bay haayeen alaala waxaanu haynay mar Ilaahay barakay adna bilaash bay noogu shaqeys Xuseen bilaash buu noogu shaqeey alxamdulillah inaan ka yaraa laakiin saacad buu suuxaya imanka yoomku 9 cisho iftiinka joogay yoomal hada oo sanad iyo 5 bilood marayo uu suuxaya xantu soo noqonaya tuuba halka dhigta hoosteeda kaga jirto saas loo bangareynay sida baabuurka naqaska lagu qaban ka diiday si jeedsanay tuubadaas ilaa halkaas kaad haysta halka laga dar calooshana waa halkaas ka qalad saas halka loogu daray gariir badan buu leeyahay wax allaala waxaan dhakhtar ku geeyay waan waay waxaan dhakhtar ku geeyay waxaan bas ku raacay waan waay aabihi waa oday weyna waayeel homa shaqeeyo ehel oo ma hayo adduun oo ma hayo nimcadeeda aad iyo aad u badan waayo faramadnaan iyo xanuun baa isku kay darsama Ilaahay wuxuu keenay waa alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin dadweynaha waxaan u bandhiganaya dibad iyo dalba ilmaha dalka waxba laga qaban karin inay igu caawiyaan walaalahayga muslimiinta toddoba kale ay weheliya toddobada kale kala waan u kariya kala waan alxamdulillah laakiin way caafimaad qabaan kuwa kale ilma caafimaad qaba ilma ku soo galay laakiin ilmaha yar waa la go madaxeyguma yaalaan margeedigu yaalaan timi waan xeeray waa la silxay waa la balanbal waxaan dhakhtar ku geeyay waan waay waxaan la kaashaday waan waay waxay la garab qabtay waan waay waxa been iga qabtay waan waay hooyaday way dhimatay la raxmad raaxin aabahay waxaan ku riito buu sakaraad ku yasbal igu soo qaylinaya eedda male in adeer male arqab male ehel male anigu ma gacanta la go jaariye jiraan waa la wadoogi cid waxay igu qabata male cid caawisa male cid habeen iga qabata male sanad iyo 5 bilood dhabtay ku gariyay wali dhakhtarna erfoodna ma geyn awoodna waanu waa itaala waanu waa ma istaagayo ma fariisanay waa baarleys madaxii intaas uu makareeyay labadeed buu hawaydi ka u jeeday madaxiis inta uu makareey tuubada saacad baa loo bangareynay wadiiday oo kaas soo jeedsanaya waa tuubadaas biyaha ka wadaa dalka gudihiisa waxa laga qaban karo dibadda mooyee ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan muslimiinta Soomaaliyeed jecel dal iyo dibad bahay eegaan baa la inaan ka yahay u caawiyaan insha Allah khayr la qaad hayst la ta muuqata wata halkaas kaga jirta halkaas laga raay qodbay waa muuqda luqunta wata halkaas ka raacsan taa dhuuban wata imka dibka ugu weyn ilmaha yar haysata waa suuxitaanka
suuxitaan kaasoo iskugu dhadhow waxaan jan noqonayo gariirayo dambarka hooyadii ka shaqay caloosha ka darogayo oo indhaha cirka u taagayo saa ku badis kaga dhigay saa oraysa ilaa lagu hayla gabil soo qoday hunqaacayo saacad imka waxa ku soo batay suuxitaankii ayaa imka ku sii farabatay marka hore wuu sahlanaa laakiin imka xanuunku wuu sii fiday de xanuunkuna minja la qabta madax la qabtuu leeyahay suuxitaankaasoo imka aad ugu sii badan oo sii haysa sii shidaysa waxba cabayn waxba cunayeen de marka ummadda Soomaaliyeed waxa la inaan ka yahay ugu gargaar Allah ugu gargaar iyagana cidii caawinaysa Ilaahay dartii wax igu qaban kartaa ummadda Soomaaliyeed cidii wax haysa lambarkaygu waa 262792 waa 262792 waa ii dahabna uu leeyahay caawi hooyadani la dhibaataysan wiilka ay dhashay waxaanad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda